marka hore intaanan hawsha halkan aan u nimid aanan gelin waxaan rabaa inaan ka tacsiyeeyo dhibka beledweyne ka dhacay runtii dhibka beledweyne ka dhacay dhib aad u xanuun badan waaye laakiin dagaalaan ku jirnaa loo joojin maayo ma loo joojinaayo dadkaas wajigooda iyo dareenkooda un bayna tuseen laakiin dad muxuu ahaay in lagu joogsado ama muxuu ahaay dagaalkaas xaqa looga laabto yeysa ku riyoonin ayaguna waxay yihiin ay dadka tuseen maalin walba qofkii la qalday waa soo ogaanooyaa ciyaal mataqaanaa sabi ah oo hooyo nuuga ayadii hooyadii in la kala la'yahay ilaa iyo saacadaas la kala raadinayo waa dhibaato waaye wajigooda un bayna tuseen arrinta ugu muhiimsan oo maanta halkan aan iskugu nimid waxa waaye waxaad ka warqabtiin bishii Sebtembar 5teedii waraysi aan bixiyey oo aan siiyey ha noolaato arrimo ku jiray qaarkood ayaa waxaa dhibsaday malaaqiyada koonfur galbeed runtii waxa iga soo gaaray muxuu ahaay cabashadaas ayagoo muxuu ahaay runtii dhibsaday qaybo ka mid ahay gaar ahaan qaybaha la xiriiray wasiirka gaashaandhigga sida muxuu ahaay dhaqanka Soomaalida oo yahay ama islaamnimadu ay tahay ama walaalnimadu ay tahay mar rabo mana diyaar u inaan garnaqsado inaan isdifaaco inaan muxuu ahaay aan wax sheego mar rabo wixii malaaqiyadu ay dhibsadeen wax alla waxay doonaan ba ha ahaadaano malaaqiyadu waa dadka haddii ay idinkeeda leeyahay ummadda kala haga nin xun iyo nin fiican iyo nin wanaagsan iyo mid fayow iyo mid waalan iyo wadaad iyo sheekh kulli ayaga malaaqo ah aniguna dadkaasad malaaqa u tiinaan ka mid ahay waxaan idin leeyahay wixii idin gaaray oo dhibsateen anagoonan muxuu ahaay wax reebashaa iyo wax mataqaanaa conditiona aanan ku xirayn wax garnaqsiya aanan ku darayn inaad raalli ka ahaataan Soomaalida waxay tiraahdaa walaalka haddii candhuuftaadu gaarto gacantaada ha gaarto wixii aad dhibsateen ka raalli ahaada waxa kaloo sidoo kaleeto ayagana aan leeyahay ciddii kaloo Soomaaliyeed oo warkaas dhibsatay qayb kastaba ha ka ahaato gaar ahaan muxuu ahaay reer Dhuusamareeb naftigooda waa soo qayliyeen waxaan rabaa inaan u sheego reer Dhuusamareeb aniga hadalkayga oo Dhuusamareeb ku saabsanay wuxuu ahaay caraadin wuxuu ahaay kicin wuxuu ahaay isciil kaambin wuxuu ahaay in madaxweynaha la garab istaago horaan u sheegay reer Dhuusamareeb hadday muxuu ahaay ay raalli ay bataqaana lillaahi waxay ka yihiin ama idinku daraan xataa waa gashay nin odaya oo nabadoona oo reer galmuduga ayaa kaliya soo duubayaan arkay oo uu leeyahay waara hadalkiisii waxaan u qaadanay la xajeclo iyo caraadin waa garashadiisa Allah u barakeeyo sidaasay iga ahayd waxna hadda waa iska bedeleenoo sida hadda mataqaanaa guulaha la gaaray ama laga soo bilaabo Camaaro meesha la yiraahdo Xinlibi caad mataqaanaa ay sheegeen dhulkaas oo dhan waa la soo xoreeyay ilaa Bulacle waad aragteen mas'uuliyiinta iyo xildhibaanada iyo wasiirada furanta taagan waxa noo dhiman waad ogsoontihiin marka aniga hadda inkastoo oo warkaas xoogaa inuu xanaf leeyahay dad ay dareemeen wixii ka dhashay yaa ka wanaagsan waxaan ku soo gabagabeynayaa malaaqyo raalli ahaada malaaqdeerow afhayeenkiisa si fiican oo gobonnimo leh haba kululaato iyo mataqaanaa iyo wiil hadlay anigoo tixgelinayo karaamada iyo sharafta aan idii haayo inaad muxuu ahaay aan ka mid ahay dadka malaaqa u tihiin iyo anoo tixgelinayo saaxiibkay madaxweyne Cabdi Casiis Lafta Gareen oo aan marti u ahay in mataqaanaa
gogoshiisii in mataqaanaa malaaqyadiisii ay iga soo eed sheegtaan anoo daaweynaya raalli ahaada 114 raalli ku ahaada wal alla wali isin dhibsateen raalli ku ahaada وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.